isdiiwaangeli muwaadin isdiiwaangeli muwaadin alxamdulillaah in dhammaan goobihii gobolka Awdal ee 22 ahaa ay saaka si habsami oo wada bilaabmeen oo Lowyacado ilaa Sayla Lughaya Baki degmada Boorama dhammaan ay si habsami uga wada bilaabmeen shaqaale ay soo wada warbixiyeen inay si fiican goobi wada furmeen waxa kale alxamdulillaah dadweynaha oo diyaar ah inay kaarkoodii codbixinta qaateen ku soo kalaheen hadda ay safafkii ku jiraan si habsami oo qurux badan ay shaqadu u socoto dadkuna si wanaagsan oo habsami ay isu diiwaan gelinayaan waxaan aad iyo aad uga codsan lahaa dadweynaha isdiiwaan gelinaya inay si degan oo habsami leh ay safafka u galaan shaqaalaha inta shaqada si fiican ugu wadaan ay u samraan haddii wax arqalada amba ay fahmi waayaan ay arkaana inay la socodsiiyaan kulba mas'uuliyiinta goobta joogtay ee shaqaalaha waqt muddaduna waa muddo dheer goobaha qaar waxay noo shaqaynayaan 15 cisho qaar waxay noo shaqaynayaan 30 cisho dhammaan wixii arqalad soo baxay waan wada xalinaynaa marka dadku haystajiyaan si degan wixii cabashaha u soo gudbiyaan hadii Ilaahay yiraahdo sidoo kale waxa iyadana aad iyo aad muhiim u ah dadka imanaya goobaha ka baxsan magaalada Boorame hadii goobtaasi ayna qabanin adeegii loo qabanayo dadka kaarku ka lumay iyo sidoo kale adeegii goob bedelka hadayna labada adeeg goobtaasi qabanayn in dadka goobta jooga ay dadka u sheegan goobta ugu dhow tagi karaan waliba dadka la soo rarayo ee laga keenayo meelaha xuduudaha ah in cidda soo raraysa ay ku baraarugsanaato goobta dadka u soo rarayaan in labada adeeg qabanayaan kale in iska hubiyaan way dhammaan goobaha dhami ma wada qabanayaan adeegga kaar bedelka iyo adeegga goob bedelka waxa jira 13 goobood oo adeegga qabanaya oo ay ka mid tahay 5 goobood ee magaalada Boorama iyo dhammaan goobaha degmada doorashooyinka yaala adeegga way qabanayaan maanta bishii 28 Disembar ay tahay waa maalintii aan sugaynay waxa bilaabantay diiwaangelintii codbixiyaasha 22 goobood ee gobolka Awdal sida uu komishaneerku inoo sheegay si habsami uga wada bilaabantay waan ku celcelinaynay sidoo waa loo maray bariga galbeed waa laga hadlay dadka waxaan ku boorinaynaa inay kaararka qaataan inay isdiiwaan geliyaan marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa moogta komishanka qaranka oo moogta hawlaha baaxadda leh sida quruxda badan u fuliyay anu waxaan ku darayaa uun hadalka intiisii badan waa la yiri bulshada reer Boorama gaar ahaan dadka waaweyn iyo dhalinyarada aqoon-yahanka inay isdiiwaan geliyaan waayo waa xuquuq uu leeyahay ciddu rabana uu ku dooranayo ciddu rabana uu ku diidayo hadalka intii wanaagsaneed waa leeyahay waa kaarka la qaato waxaan sa ku darayaa haddii kuyugu idinku yar dheeraado ha caroonine bil buu soconaya intaad iska noqoto maalinta dambe soo noqo shaki badan uu ina gelin bil buu noo joogayaa waa kaarka waynu wada qaadan karaynaa haddii aynu dadaalo sidaas laakiin uu sheegay wasiir Maxamuud dhibaatada ugu weyn waa magaalada gudaheeda dadku iska seexanaya kaarkii agtiinu yaala waxaan leeyahay dadweynaha Boorame kaarka la qaato waan bogaadinaynaa in hawshaasi ay si fiican u socoto dadkuna ay safafka ugu jiraan siday kaararka u qaadan lahaayeen laakiin waxa muhiim ah in qofku uu samro oo kuyuga ku jiro si uu helo kaarkii uu xaq u lahaa ee beritoole uu doonayay inuu ugu codeeyo qofka uu doonayo waxaan goobjoog u nahay gobolka Awdal 22 goobood ee diiwaangelinta gaar ahaan degmada Boorame xarunta dhexe inay ka socoto diiwaangelintii kana bilaabatay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa komishanka doorashooyinka qaranka waxaan kaloo u mahadnaqayaa dadweynaha degmada Boorame iyo dadweynaha gobolka Awdalba inay si habsami uga socoto diiwaangelintii codbixiyuhu